qodobkeena kale hay-adda kubadda cagta adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano FIFA ayaa maamul cusub magacaabday. hay-adda kubadda cagta adduunka ayaa shir ay kasoo qayb galeen 204 xubnood u dooratay madaxweyne cusub Gianni Infantino oo dhashay dalka Switzerland oo u doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA. Infantino ayaa asal ahaan Talyaani ah ayaa wareegii ugu dambeeyay doorashada FIFA ka dhacday magaalada Zurich ee kaga adkaaday Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa oo dhashay dalka Bahrain. wareegii ugu dambeeyay ee doorashada ee labaad ayaa Infantino waxa uu helay 115 oo kamid ahaa 207 cod ee xiriirka kubadda cagta adduunka ay dhiibteen, halka Sheikh Salman uu helay 88 cod, wuxuuna u baahnaa kaliya 104 cod oo ka badan 50%. waxaa sidoo kale wareegii labaad qaybta galay Ali bin Al Hussein oo dhashay dalka Jordan oo helay 4 dhibcood, halka Jeremy Champion uusan helin wax cod ah. Gianni Infantino ayaa xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta ahaa xogayaha guud ee kubadda cagta ee Europe ee UEFA. xubnaha u codeynayay waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab. markii uu ku guuleystay gudoomiyaha cusub waxa uu sheegay inuu wax badan ka bedeli doono habsami u socodka xiriirka kubadda cagta adduunka, wuxuuna hoosta ku xariiqay inuu soo celin doono sharaftii iyo maqaamkii xiriirka kubadda cagta adduunka. doorashadan ayaa kusoo beegantay xilli musuqmaasuq baahan uu hareeyay FIFA, taasoo sahashay in xilka kubadda cagta adduunka laga xayuubiyo gudoomiyihii xiriirkaasi Joseph S. Blatter.